laakiin markaan warbixin ciidanka idinka siiyo ciidankani wuxuu u baahan yahay tababar 155 cisho ah 45 cisho taliya waxaa la gelinayaa diyaarin 110 cishona wuxuu ka qaadanayaa xiisadaha kala duwan ee tababarka ciidannimada kuwaasoo ku salaysan manhajka tababarka ciidanka difaaca Puntland oo uu soo dejiyay taliska ciidanku iyo hoggaanka tababarku waxaanu sii doonaa dhammaan 24 saacadood jadwalka tababarka ciidanka ee loo soo dejiyay ma aqbali doono nagamana dhacayso inuu askarigu waayo 5 daqiiqo oo uu xaq u lahaa inuu qaato xiisad loogu talagalay waxaanu ku dhisanahay hanaan maamul oo isku xidhan iyo isla xisaabtan macallimiin iyo maamulba waxaanu ku talagalaynaa manhajkuna uu ku diyaarsan yahay mudana taliye ciidan kasta oo la tababaro inuu ahaado ciidan dhammaystiran aanayna ka dhinmin wax baahi ah oo ciidan leeyahay insha Allah taala annaga oo ilaalinayna sharciga dhowrayna ku dhaqmayna awaamiirta taliyaha iyo madaxda dawladda waxaanu dhexda u xidhanaynaa inaanu ka soo baxno waajibaadka tababar ee ciidankaasi uu leeyahay ciidamadii dhulku adiiranayaan codso dhuunta iyo cadow dood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano dhiiranayaan dacdayaab labay dhagtu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidhiyeen adiiranayaan ciidamadii dhulku adiiranayaan ciidamadii dhulku adiiranayaan codso dhuunta iyo cadow dood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano dhiiranayaan dacdayaab labay dhagtu maqashayo waxaa timi dhaaraan kii dhiglo ciidow dhashiyo kii u dhaartay qarankuba dhiidhiyeen adiiranayaan ciidamadii dhulku adiiranayaan dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhibsadoo ka kaca dhiiranayaa
kara ummad yahay dheglaha salagle ibla ogay baa dhalatay xaqii dhuuntay baa dhowba kuwa dhimanayay muuqda kuwa dhimanayay muuqda ummad yahay dheglaha salagle ibla ogay baa dhalatay xaqii dhuuntay baa dhowba kuwa dhimanayay muuqda kuwa dhimanayay muuqda Soomaalay dhammaan dheemada murtida dhagaha u furo maanta waa dhabtiye isu dhalatadii kala dhuumata isu soo dhowo indhiigiyo naftaba dhulka loo huraa go'aan laga dhigte isu dhalatadii kala dhuumata isu soo dhowo Soomaalay dhammaan dheemada murtida dhagaha u furo maanta waa dhabtiye isu dhalatadii kala dhuumata isu soo dhowo indhiigiyo naftaba dhulka loo huraa go'aan laga dhigte isu dhalatadii kala dhuumata isu soo dhowo dhulka 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 iyo badaba barwaaqada dhextaalo eebbe dhigay idinka u dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine dhulka 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 iyo badaba barwaaqada dhextaalo eebbe dhigay idinka u dhasho laydin dhisayaan cadow dhadhamine yaan cadow dhadhamine xeradan dugsigan tababarka ee baran waqtigii la furay waxay ahayd 22 bishii labaad 2020 xilligaas oo dugsigan la dah furay loona furay guuto kamid ah ciidamada kuwan dooska Puntland oo magaceeda la yiraahdo Galayr waqtiga hadda uu socday shaqadaas tababarkaas waxay ahayd ama dugsigu uu furaa waqti 30 cisho ah maanta waa 24 bishii 24 bishii saddexaad weeye sidaa darteed waxaan sameeynaa maanta qiimeyn iyo bandhig wixii aanu qabanay haddii ahaan lahayd aqoon kororsi ciidanka ay barteen iyo haddii ahaan lahayd dhismayaal iyo waxqabad aan ku soo kordhinay xerada shaqada aan wadnay kaliya ma ahayn waxbarasho kaliya waxay ahayd dhisme ka socday xerada baahiyaha ka jira nooc kasta ay tahay hadda waxa noo socda halkan wax ka socda waa guri store ah baa laga wadaa shaqadiisa gacanta lagu hayaa waxaad arki doontaan oo xagga ka jira ka socda masaajidkii oo laga bilaabay balbalooyinkii ama barandooyinkii ciidanku ay harsan lahaayeen shaqooyinku way socdaan waxaanu dhiiri gelinaynaa marka waxbarashada iyo dhismaha waa isku wadeennaa waxayna ka mid tahay ciidanka aan waxbarayno inaan ku baraarujinno oo ay bartaan inay wax qabsan karaan dalkeena iyagu leeyihiin iskaa wax u qabsan wax ku dhisi karaan annagoo dowladdeenu na garab taagan tahay xeradana ay dhistay haddeerna ay nala garab taagan tahay wax kasta ayaan annagu waxaanu ku talagalay inaanu dhisno xerada wixii ka dhiman oo aanu tusno ummadda in wax la qabsan karo ciidamadu meelaha ay degan yihiin xeryaha ay joogaaniin inay dhisi karaan horumari karaan wax badan ka qaban karaan oo ka bedeli karaan sidaa darteed annagoo dhiiri gelinayna guud ahaan ciidanka Puntland baan waxaanu isku xil saarnay annagoo ah haddaanu nahay maamulka dugsiga dhammaan taliye ku-xigeen macallimiin iyo laamaha kala duwan ee dugsiga dhammaan iyo ciidanka dhibow ilaa ilaalada dugsiga waxaanu isku xil saaray dhammaantood annagoo isku mid ah oo hal tiima inaanu xerada ka qayb qaadano dhismaheeda amnigeeda horumarkeeda iyo aqoonta kororsigeeda labadaba waxaanu nahay hal tiim oo isku xiran marka halkaan waxaan salaan diiran uga dirayaa taliska guud ee ciidamada daraawiishta Puntland iyo hoggaanka tababarka oo aan ku shaqaynaynay jadwalkii tababar ay noo soo dejiyeen ilaa haddana uu socdo oo ay ka soo wareegtay waqti bilah bishaasna ciidanku waxay qaateen dee waa wax la soo bandhigay
iyo wax aan anigu haddeer taas sir militariya waan halkan ka sheegeen wax badan waxaanu rabnaa inaan soo bandhigno waqtiga tababarku soo gabagaboobo laakiin haddeer wax ka mid ah qaybo ka mid ah aqoontii ciidanku ay barteen intay waqtigii yaraa ay xeradan joogeen baan soo bandhignay insha allah iyagoo dhammaystiran waqtiyo badan waan soo dhammaystiri doonaa laakiin haddeer intaa aad aragteen iyo wax badan oo aan sheegi doonin laakiin og yihiin hoggaanka tababarka iyo talis guud ee daraawiishtu wixii aan qabanay halkaa waa berendooyin baa ka socda berendooyinkaas waxaa degan ciidanka iska wuxuu qabsaan ku dhisnay waxaa noo socdaa oo hadda noo dhammaaday furinkii roodhiga waxaan rabnaa inaan anagu haddaan nahay ciidanka dugsiga dhibow RB macallimiin iyo maamul dhammaanta iyo anagoo isku duuban aanu ka maaranno inaanu magaalo wax ka soo qaadanno ciidanku waa inuu isagu isku filaadaa wax samaystaa waa inaan furinka iyaga leenahay beerihii baan rabnaa inaan beeranno haddeer halkaa dhirayntii weeye halkaasu oo halkaasaa ka bilownay waxaan doonaynaa wax badan inaanu qabsanno bedello ciidamadan aan dhiirigelinno guutadan tababarkeedu meel fiican buu marayaa muddo bilay hadda ku jireen aad iyo aad rag u dadaalaya duruustana qaadanaya ka faa'iidaysanaya weeye casharada la siinayo guutada magaceeda waxaa la dhahaa galayr ciidamada galayr ee Puntland bay ka mid tahay waa guuto kumaandoosa waqtiga dambe insha Allah tababarku noo socon doonaa baan soo bandhigi doonaa aqoonta dugsigan ay lagu bartay oo la soo dejiyay jadwalka ay soo dejiyeen hoggaanka iyo talisku macallimiintuna ay fuliyeen iyo maamulku